السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب دمانتين وادين سلام ميل والبعد انت على ديساك جوجتان وولاشين مونتا وادين لاسكسون وقشون اكسن مانتو حاربا إذن شيغو مسانا عربا إنا إذن لوداغو waxyaalo badan marka ku soo dhawo fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe inoo saar siina share garay insha Allah hadaa hore noo joogta aad u mahadsan tahay soo dhawo kun iyo koo jeer waxa waaye maanta ina idin la wadaago araba waxa waaye darat video aan soo dhigay ee ahayd dukaankeyga waa beec ma fahanteen aniga waa ogeedeen kulligiina qof business iska aha business ku jiro oo iska shaqaysanayso so hadeertaan still shaqadii maanan joojinin laakiin dukaankiya iska iibiyay waxa arrinkaas igu kalifay in ay soo fadhiisto YouTube aan duubo waxa waaye customerkeyga madaxooda customerkeyga oo zaid ii soo wacay oo iweydiinaya alaabo oo iweydiinaya wax cusub ciid u maaday all that ma fahanteen igu kaliftay in idin soo fadhiisto inta idin la wadaago oo idin dhaho dukaankeyga waan gaday ma fahanteen marka guys waxa igu kalifay mise ina dukaanka aan gado maxay noqon kartaa waxyaalo badan maskaxdiina uu soo dhici karaa yes waa saxantiin aniga qof iska degan oo deegaan ah oo iska shaqaysanaysa aha laakiin hadeertaan safar degdeg ah soo galay safarkaasna hadda ina idin sheego marabo waxa rabaa markii wax walba ii hagaagaan ina idin sheego meesha u socdo iyo meesha ahaataba intaba ma fahanteen laakiin before that hadeertaan markii oo inta markaan ka baxay waxaan aadayaa horta hooyaday macaan iyo familkeyga ayaa rabaa inaan u tago taas ka sokowna maxaa la dhahayaa dukaanka waan gaday asxaabta customerkeyga aadka iyo aadka u qiimaha badan sharafta badan oo aan isla soo shaqeynay oo maxaa la dhahayaa wax walbo imaado oo يعني like ala wadaagi jiray ayagana igu aamini jireen lacagtooda ii soo dirsan jireen anigana alaabtooda ayagoo dhan sidiisa ugu diri jiray oo ku farxi jiray aad iyo aad idin kaga mahad celinaya wada shaqeynay ma ahan mid aan ilaabi doono waxa tiin dad aad iyo aad u qalbi furan waxa tiin dad aad iyo aad u qiimo badan oo u sharaf badan oo u ixtiraam badan aad idin kaga mahad celinaya dhanka social media iyo dhanka dukaanka caadiga intaba waxa waaye dad waxa igu xiran wallahi oo zaid u qalbi saafi ah ma fahanteen oo aad iyo aad u jeclahay tihiin guys dukaankii waan gaday oo Nairobi ku yaalay laakiin kuwii Kampala ku ooleen way furan yihiin ma fahanteen reer Kampala waa idin soo socdaa waxa waaye dukaankaas inoo shidnaan doontaa insha Allah reer Nairobi dukaankii Nairobi waan xiray intaas ayaa rabay inaan idin la soo wadaago dukaankii Nairobi waa xiray laakiin hadii in case iiga baahataan anything like aniga hadeertaan dukaanka walaasheeda dukaanka hooyadeeda dukaanka habaryar intaas u dhaxeen doona markaan tago Kampala intaas dukaan wixii aniga markaas soo galiyay hadaa ka heshid sidii caadada ahayd waan ku soo dhiibay lacagtaada soo dirsanaysa meel walba adduunka ka joogtid DHL misana cargo misana maxaa la dhahayaa baska idin soo saaraya ma fahanteen marka yaa guys intaas ina idin sheegan waa rabay teeda kale waxa waaye Kampala ayaa u socdaa koow hore faktiga hore hadeertaan ina meesha tagaa rabaa koow laakiin meeshan ka aadayo hadeertaan maraba ina idin sheego markay wax walba ii suurtagalaan oo ilaahay ii fududeeyo sidii niyadeyda rabtan iiga dhigo ayaa rabaa ina idin la wadaago insha Allah laakiin aniga saan shaqan kuma aanan joojinin shaqadeyda meeshan ka sii wadan doonaa waxa hadalkan hadan igu kalifay ina idin sheegan waa idin sheegay already waxa waaye customerkeyga dartooda dad badan ay soo wacay oo ciid walba igu tishan jireen oo iga adeegan jireen oo alaaba u dhiibsan jireen oo alaaba aan u dhiibi jiray oo wadanka banaankiisa degan sida Mareykanka oo kaleeta aad u mahadsan yihiin reer Mareykan sharaf ay leeyihiin wallahi bila aad u sharaf badan yihiin waliba halka mar ay soo adeeganayeen misana adeeg ay soo dirsanayeen kun ka yar ma soo dirsan jireen laakiin waxa waaye still aniga waan joogaa wadankii baa ka tagaya Nairobi baa ka tagaya dukaankii Nairobi baa gaday laakiin dukaamihii kaleeta way furan yihiin so wax walba cusub markaas imaadaan waa idin la soo wadaagi doona oo aniga aan ka helo oo aniga aan qanciyo misana faa'iido ay ku jirto mise idinka ay idinkaga faa'iideyn karo waa idinkaga faa'iideynaya ma garateen
marka waa ka guys, I hope inaad saas u fahanteen. dukaankii Nairobi waan gaday waan iibiyay marka Nairobi dhanaan ka guuraya ma fahanteen. intii iga sugaysay qolka inaan soo duubo aad ugu xumahay, qolkii ma soo duubi kari. maxaa la dhahay, I hope background-igay hadda waa ujeedin waxyaalo yaryar ka dhinaa inaan idin soo dhameeyo aarawe, laakiin since aan buguurayo oo alaabtii wixii dhan aan wareejinayo waxay ila noqotay inaan idin la soo wadaagin, because markaa meesha raba aan tago aan isdhaho hadda deegaan baa tahay, markaas ayaa rabaa inaan guri qurux badan aan sameysto aan idin soo duubo. wallahi waxaan degdegay ku dhaceen wax walba, aniga kuma ma filanaynin. haddaa aan filan lahaa bixitaankayga mise safarkayga aan filan lahaa, alaab cusub maanan dhigteen, ma fahanteen. marka wax walba degdegay kusoo baxeen. wax walbana waxaa waaye waxay noqotay ciyow. wax walba waxna ilaahayna wax buu balan gareeyaa, anaga bini'aadamkeena waxbaa balan gareynaa, laakiin alxamdulillah wuxuu ilaahay balan gareeyaa dhacay. aadana ugu faraxsanahay. teeda kaleeto waxaa waaye videogaas ma arki kartaan, ma idin soo duubi karin because waan gadayaaba, mana rabo video aan gadaayo, alaabtii aan gadaayo aan wareejinayo in aan idin soo duubo. wixii markaas aniga aan ku noolahay aan ku jiifo amisane qolkayga u yaala ayaa rabaa inaan idin la soo wadaago, ma garateen. marka guys waa kaa halahaas rabay inaan idin la soo wadaago. teeda kaleeto waxaa jiro kareen oo wait waa soo qabanaya. kareenka miracle-ka videogii horena waa idinkaga soo sheegay oo makeup-ka aan sameynayay. videogan waa idinkugu sheegay because aad u anfacay. shalayto videogaas aan sameynayay maanta isku mid ma aha wajigayga, wax badan baan ka dareemayaa. company-gan company Soomaaliyeed oo ay Soomaali ay leedahay, branchigooda weyn wuxuu ku yaalaa Thailand. inta Nairobi ahna branch ku leeyihiin, especially reer Isli branch ay idinka furay, official idinkaga furay, wala dukaanal idinkaga furay. hore ha loo gaaro, numberka inta idinkaga soo qoraya, inta idinkugu soo qoraya. inta aan videogii hore soo daabanin aan ku arkin, hadda rabaa inay arkaan. waxa waaye cirbad camal u samaysan yahay bahalkani. waxaa loogu talgalay gabdhaha nabraha madmadowga, haaraha, wajiga oiliga leh, sensitive-ka leh, intaba inay isticmaali karaan. waana 100% waxa waaye wax la hubo waaye, sure deal nimco wajigeeda sensitive-ka hadduu kan ku shaqeeyay waxaa aaminsanahay inuu adigan wajiga kugu shaqeyn doono. marka guys waxa waaye waa kana cirbad camal u samaysan yahay. inta afkaana ka furaysaa, wajigaa ku dhiijinaysaa, wajigaagu nadiif ah ku dhiijinay, then waa ku marinaysaa, ku massage karaynaysaa, ma fahanteen. reer Isli ka faa'iideysta, hore u gaara gabdhaha wajiga ka dilmeen anoo kale, yani like oo nabraha anaga gabdhaha oily skin-ka waxa waa iska wararhaynaa soo maha, nabaraana baaba'shay. so laakiin kan wallahi aad u anfacay maasha Allah. number kale so gabdhaha numberka inta idinku soo qoraya la xiriira 1500 waaye, $1515 oo shilin waaye. meel walba adduunka joogtina waa lagu soo dhiibayaa. waxa waaye guarantee waaye, wax la hubo waaye. miracle waaye taalaha, screenshot ka qaata. waxa waaye ingredients fiican uu ka samaysan yahay, aad waliba. maxaa la dhahayaa, expire date-kiisana ma soo dhawo, aad u fog yahay. hadduu kan ku anfici waayo oo adiga wajigaaga uu anfici waayo, dadka isku waji maaha still. adiga hadduu ku anfici waayo kan nooc kale haayaan. aniga noocii hore aan barooweeyey way anfici waaye because wajigayga sensitive u ahaa, laakiin noocaan maasha Allah waan ka helay. mana rabin inaan idin la soo wadaago wax aanan aniga anficin. so guys hadda wixii ka dambeeyo videoyada idin soo sameyn doono waxay noqon doonaan videoyo ay idinkana ka faa'iidi doontaan oo anigana aan ka faa'iidi doono. يعني waxa aniga ka faa'iido ina idin la soo wadaago, ma fahanteen. so asxaabta waa ka intaasna waxa waaye ina idin kaga faa'iideeyo because gabdhaha wajiga nabraha ka dilay way badan yihiin, tira ma lahan. nimaanta ka socda hadda dhahdina in discount lagu sameeyaa suurtagal ah. marka waa ka saas oo la socda waa $15 ku talgala waana, laakiin hadii ka badan jumla qaadanaysid, hadda tafaariq qaadanaysid, inta waa lagu soo dhaqaaleynaa, lagu soo dhaweynayaa. hadduu kan ku anfici waayna ku kale tayaalo ee kugu bedelayaan hadhooti, ma fahanteen. laakiin wax walba biniya waay, niyada gasho in aad ku caafimaadi doontid insha Allah, waana ku caafimaadi doontaa, ilaahay daawo kugu dari doona, ma fahanteen. muhiimad weyn ba taas waaye.
marka asxaabta qaaliga ah aada idinkaga mahad celinaya hadaa videoga intaan soo gaartay subscribe saar like na saar sina share kare insha Allah intaan inka badan waa idin la soo wadaagi doonaa hadda guri jooga noqday inta iska xirxiraayo oo shopping gareysanayo waxa waaye videoyo badan idin la soo wadaagi doonaa insha Allah dhanka shopping ka haday noqoto waxa soo adeegto iyo wax walbo waa idin la soo wadaagaya marka hadaa videoyo jiraan ina idin la wadaaga aragtaan oo xiiseysaan oo jiraan ila soo wadaaga waa idin soo sameynaa insha Allah hadda inta guriga joogo marka waa ka qiyaarta aad idinkaga mahad celinaya sida sharafta mudan iyo xishmada ani idinka iskula soo shaqeynay oo maxaa dhahay wada shaqeynteena ay socon doonto aysan intaas ku ekaan doonin inta u adeega iyo inta dukaankay ugu soo booqato un baa garan karta marka inta kaleetan waxa waaye hope inay wada shaqeyna dhaxmartaan idinka aadaan idinkaga mahad celinaya wax walbo waa idinkaga mahad celinaya aada u mahadsantihiin marka waxa idinka leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantuucan oo wanaagsan bye bye